بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ما أنت وحن إذن كيرني إن كهذا الله برنامج مع المهم بعد سوشيال ميديا لو قد دعوني طاط بدنا سوشيال ميديا كدليل وبعد قبل يراهدو وكهذا لأي قابكي دور شدين ودعوي برنامج كاسان وأنا فهم كيجي يصير إنه أرجعنا الدنيا إن ما أنت إذن كيو كذهان شعبك الصومال لام بأن لو ذا أصلاً برنامج هذا نوع عنو كلاء أو دوكيومنتريز كلا يراهدو والنوع كم إذا خابك وحلا بعده علم باريس تلاصمه مركز ريسيرش كلا جهاد لاي ريسيرش مركز دون سمركز إن تكهذا شو هذا أكتو أما عاد نليشو أما عاد وافقدو وحي ريسيرش كاسو soo saaray meel laga eega jira oo adduunka standards oo la yaqaano oo jaamacadaha iyo maxaan ku dhahday meelaha wax lagu daraaseeyay lagu baaraa ay ka eegaan barnaamijyo badan oo caan ah oo adduunka waxa jira sidoo kale documentaries ka sameeya oo baaritaanada noocaas ah sameeya barnaamij caan ah baa jiro oo wada garanaysan oo jasiiro ka bixi jiray oo la yiraahdo sirri lil ghaaya qaybteeda af carabiga ka bixi jiray waxa jira sidoo kale barnaamij BBC da ka baxa qaybteeda afka Ingiriisiga oo iyadana la yiraahdo Panorama labaduba waxa weeyaan waa barnaamijyo waxay ahaayeen yihiina wax baara oo waxaanay dadku ogeyn soo bandhiga si kale hadaan u dhigo waa waxa la yiraahdo investigative journalism oo runtii u baahan inuu yahay wax la dhiirigeliyo marka aad eegayso waxaas xaqiiqnimadiisa iyo sax ahaanshihiisa meelaha laga eego waxa kamid ah methodology-ga qaabka la maray iyo dariiqa loo maray iyo sida loo maray ee loo baaray marka deegto barnaamijkan baadigoob anagu waan daawanay intaas oo goor baan ku celinay inaanu fahanaan isku daynay strengths iyo weaknesses ka labadaba halkeebu kaliita halkeebu xogta waxaan baarsan yahay sax ka tahay methodology-ga markaan eegnay qaabka iyo habka loo maray dadka guud ahaan programka lagu wareystay badidoodu boqolkiiba 95 wax ka badani waa dadkii commission ka u shaqeynay waa dadkii dhaartay ee loo dhaariyay inay commission-ka u shaqeeyaan ama ha noqdo maxaan ku dhahday xubnihii ugu sareeyay ee gudoomiyaha commission-ka ama xubin kale oo commission-ka kamid ah ha noqdo ama ha noqdo dadkii goobaha ahaa xog hayayaasha ama ahaa maxaan ku dhahday gudoomiyayaasha goobaha ahaa taasi markaa waxay muujinaysaa markaad methodology-giisa eegto qaabka uu maray iyo dadka uu wareystay inay yihiin dadkii dhexdhexaadnimada loo tuhmay kaliya maaha wadadkii dhexdhexaadnimada loo dhaariyay inay dhexdhexaad doorashada ka noqdaan waxay doorashada ka sheegayaan dhexdhexaad ka noqdaan wadadkii loo dhaariyay ee kitaabka gacanta loo saaray kaas waa qodobka labaad waxa la eegaa methodology-ga marka eegayso waxa la yiraahdo representative waxan may geography ahaan iyo dadka uu wareystay iyo eerooyinka uu tagay sida programka ku cad ee ku xusan 22ka degmo doorashada waa ay maxaan ku dhahday tageen marka xagga marka aad ka eegto ee aad ka axado waxa noo muuqata inuu yahay methodology-ga noocaas mid lagu kalsoonaan karo oo wuxuu sheegayana la qaadan karo qodobka labaad dadka la wareysanayay ama data-da la ururinayay waxa ay data-da nooca loo yaqaan primary data hadii jir data-du waa laba nooc mid waa secondary oo waa data inta cid hore samaysay adiguna dabada data-da doonaysa inaad fahantood state garayso midna waa primary waa qofkii goobjoog ahaa ee meesha joogay oo adigu aad u tagtay oo aad wareysatay oo aad xogtii ka raadisay marka primary data-du markay dadka wax baara ka hadlayaan waa data-da ugu xoog badan marka ku kalsoonaanta data-da laga hadlayo waayo qofkani wuxuu qoray kuma warinayo wuxuu ku warinayaa oo ku sheegayaa wixii uu soo joogay ee uu arkayay ee Ilaahay ku ogaa ayuu kaaga waramayaa oo ku sheegaya kaasina waxa weeyaan waa qodob kale
oo xaqiiqatan aad iyo aad u muhiim ah nooca ay dheetadu tahay iyo dadka laga qaaday iyo sida loo qaaday qaybta kale iyaduna muhiimka ah waxa weeyaan waa analysis-ka waa qaybta kaliya ee qofka dheetada qoray uu dheetadii turjumayo ee uu analyze garaynayo ee uu ka warramayo analysis-ka lagu sameynayo maxaan ku dhahdaa report-kani kaliya wuxuu isku xidhxidhayaa stories-ka kala duwan ee meelaha kala duwan ka yimi si ay daawadaha macno ugu sameeyso laakiin tiisi aragti ka baxsan taas kuma soo darayo oo barnaamijka kuma jiro kaasi waxa weeyaan waa qodob weeye barnaamijka waxyaabaha haddaan soo koobno uu findingskiisa ka mid ahaa oo maxaan ku dhahdaa barnaamijka marka daawato ku cadaanaya waxa ka mid ah in commissionka doorashooyinku dhexdhexaadnimadii ka baxay waana sheegi doonaa meelaha ay kaga cadahay barnaamijka inuu commissionka doorashooyinku dhexdhexaadnimadii ka baxay in waraaqihii codbixintu ka baxeen gacanta commissionka sababtu ay uga baxeen sidii doonta ha noqoto maxaan ku dhahdaa iyaduna waa wax kale oo cad oo barnaamijku ka hadlaayo oo sheegaya in nidaamkii hubinta codbixiyuhu isna habkii loo dejiyay aanu marin caseska aynu soo qaadan karnay program ka hadlaya waxa kamid ah maxaan ku dhahdaa meelo qofka hubinaya aanu commissionku wax xiriiraba la yeelanin la hadal maxaan ku dhahdaa hubiyihii taa marka laga yimaado technology-gi iyo habkii nidaamkii lagu heshiiyay maxaan ku dhahdaa markii doorashadu ay socotay aynu doonaynay inay inoo hubiso oo ahaa diiwaangelintii sida la wada socotaan qofka waxa laga qaadayay deyndihiisa la eegay si aanu marka qofku u noqdo qof aan qofkii ahayn aanu ugu codaynin kaarkiisa ujeedada loo qaadayo taas ah waayo verification-kii xaqiijinta waxa loo sameeyay may ahayn diiwaangelinta ee doorashada marka doorashadii verification-kaasi xaqiijintaasi iyadana uu ka maqnaa oo iyaduna waa mid cad oo maxaan ku dhahdaa marag madoona waxa kale iyaduna meesha ku cad in markii ugu horeysay doorashada Soomaaliland ay gacmo shisheeye gacanta la soo galeen oo ay ku lug lahaayeen ujeedada doonaan kala haadaan danahay doonaana ha kala haadaan marka ay sidaa tahay qofka dood ka duwan qaba leh maxaan ku dhahdaa program-kani sax maaha inuu qofka ka hadla maaha in maxaan ku dhahdaa xeer ilaalinta inta warqad soo qorto maxaan ku dhahdaa qofkii sameeyay ay askar u dirtay askar kaga jawaabta maaha laakiin diisa waa inay si cilmi uga hadlaano ay dhahdaan program-kaasi sax maaha sababta dadku waa inuu doodo xog raadiyo soona bandhigo oo soo bandhigi karo hadii jeerna runta iyo xaqiiqadu dad badan bay ku adagtay inay liqaan laakiin tiisa hadeynaan ogolaanin dadku inay inta iyagu xod raagsadaan wax baadhaan soo bandhigaan wax dadka ka dadnaa hore uma soconayn waayo jeedka waxaan loo baadhaa ma aha in wax lagu xumeeyo ma aha in umad lagu kala dilo ma ujeedada ugu weyn waxa weeyaan in wax laga barto weey godkii shalay lagu qaniinay waa inaan barito lagu qaniinin aad wax ka barato oo waxa aad ka baratayna aad wax ku hagaajiso oo ay ku socoto daraasadaha haddaad waaran kaga jawaabto anigu macnaheeda ma garanayo waxaan waa daraasad qof baa isxilqaamay waa wariye madax bannaan wuu baadhay wuu soo bandhigay adiga waxa kaaga yaala dad buu wareystay dadku wareystay waa dadkii commissionka adiga waxa kaaga yaala haddaad ka soo horjeedo waxa weeye inaad dooda aad kaga soo horjeedo aad soo bandhigto waxyaabaha cadcad ee uu kaga hadlayna waynu maxaan ku dhahdaa uu iman doona sida nagu maqaalaa xataa TV-yada waa laga hadlay inaanay program-kaasi aanay soo deeynin laakiin maanta alxamdulillah xilliga aynu joogno iyo casriga aynu noolahay maaha casri dadku maxaan ku dhahdaa information-ka ay doonayaan inay raadsadaan oo ay helaan
sinaba loo hor joogsan kara maaha sababta technology-ga iyo internet-ku maanta nolosheena ay qayb weyn iyo horumarka ummadaha uga yihiin xaqiiqatan taa weeye inaanu qof meel fadhiya isagu maamulin oo controlling information-ka iyo xogta dadku helay dadku iyagu ay u madax banaan yihiin xogta helayaan iyo sidoo helayaan iyo halka ay ka raadsanayaan waana ku appreciate gareynaya mujtamaca reer Somaliland inay ku fiican yihiin inay iyagu xogta raadsadaan annagu doorashada wax kasta oo dhacay iyo si kasta oo ay u dhacday xisbi ahaan waanu aqbalnaa wax taa iska bedelayaana ma jiro dadku inay mid noqdaan oo ay wada jiraanna waan dhiiri gelinaynaa waan mar walba waan ka hadalaa inay midnimadeenu muhiim tahay ummadnimadeenu muhiim tahay wada jirkeenu muhiim yahay laakiin taa macnaheedu ma aha khaladkii dhacayaan laga hadlay khaladkii dhacay hore waanu uga hadalay maanta waanu ka hadlaynaa bari iyo saa dambe iyo takasi dambeysana waan ka hadlaynaa waayo sababta waxaan doonaynaa inaanu dib u dhicin macnaheedu ma aha inaanu doonayn xumaan lagu abuuro macnaheedu waxa weeye inaanu dib u dhicin oo aanu berito soo noqonin haddii Ilaahay raahdo insha Allah laakiin waxa dadka qaybinaya oo maxaan ku dhahdaa xumaan abuuraya qofka diidan commission-kii shalay cabashada inta leega ay ka jirtay inuu dood ka furo oo uu bedelo waxa dadka qaybinaya oo bedelaya qofka warbixin iyo daraasad iyo cilmi soo bandhiga doonaya inuu caburiyo oo uu qabto waaranka u soo goynaya marka aad diido in saaxad loo siman yahay iyo nidaam cadaaliya dadku ay ku tartamaan ma adiga dadka qaybinaya mise qof kale war walaal aynu cadaalad iyo system ina wada anfaca abuurano ayaa dadka qaybinaya oo kala qaybinaya oo kala kaxaynaya asalanba commission-ka doorashooyinka mas'uuliyadiisu waxay ahayd isagoo ku shaqeynaya madax banaani dhexdhexaadnimo iyo daahfurnaan adeegsanayna awoodo sharcigu siiyay isla markaana raacaya xeerarka habraaca iyo habdhaqanka ee doorashooyinka loo dejiyay inuu qabto doorasho xor ah oo qof kasta xisbigu doonaha ahaadee si xor ah u codeeyay isla markaasi doorasho xalaal ah waxa la yiraahdo fair loo siman yahay oo si loo siman yahay loo codeynayo marka program-kan eegto meelaheeba dhaliilaya commission-ka oo inoo cadeynaya inaanu commission-ku sidaa yeelin raw dhacdo oo yar baan doonaya inaan idin la wadaago waan hubaa badidiinu waa daawateen dad badan oo shacbiga reer Soomaaliland way daawadeen inta aan daawana way helayaan inay daawadaan ayaanu ku dhiiri gelinaa oo ay arkaan oo iyagu ay judgment-ka gaadhaan aanu qof kale u gaadhin waxa kamid ah Faadimo Saciid oo wada garanaysaan oo ah xubin sare oo xisbiga kamid ah isla markaasna maalinta muraaqib ahayd in goobtii ay joogtay qasab lagaga soo saaro xoog lagaga soo saaray isla goobta waxa dhacday in gabadhii commission-ka ka ahayd goobta gudoomiye iyadana meeshii laga kiciyay kadib markii ay diiday inay dad aan xaq u lahayn inay codeeyaan isla kursigii inantu ay ku fadhiday gudoomiyihii commission-ku ku fadhiistay oo isagu sharci daradii iyo nidaamkii inanta ay ka xishootay dhaaratay ay qabatay xakamaysay isagu tii mariyay oo sawirkii oo caddi u yaalo oo isagii oo maxaan ku dhahdaa ilmo yarina uu maxaan ku dhahdaa dariiqa uu ku jiro oo process-ka uu marayo taasi haddaanay cadaynahayn maxaa cadayn ah qofka taa wuxuu ku diiday sidoo kale isla commission-kii xubin kamid ah xubnaha commission-ka ayaa isla barnaamijka ku sheegay in gabadha meesha laga saaray gabadha oo Faadimo Saciid waliba Faadimo Saciid waa la xiray habeenka in ogtihiin in kala ma hubo laakiin tiisa waa la xiray
marka ay sidaa tahay eeg inantii la xidhay inantii meesha joogtay gudoomiyaha ka ahayd laga kiciyay gudoomiyihii commissionka ee nationalka ahaa oo meeshii fadhiistay ee sawirkiisu cad la hayo isagoo ilmo yar oo under age codkii u process gareynaya ilaahay baan idinku dhaariyay maxaa cadeynaya ka dhiman inaanu commissionkaasi dhex ahayn qofka doodta ka duwan qaba waa inuu keeno inuu tarad caaya maaha inuu raadiyo maaha laakiin tiisa waa inuu taa ka hadlaayo oo taa keeno waxa kale oo iyaduna dhacdo kale ah shirkadii waraaqaha inoo soo daabacday Al-Qurayr laba goor bay wadanka timi commissionka doorashooyinka ismay arag iyaga inoo sheegay oo qiraya maxay wadanka ka soo doontay waxay la kulantay mas'uuliyiin dawladda iyo xisbiga kulmiye ka tirsan warmiyaanay waadax ahayn shaqada meesha ka socotay cidda doodta ka duwan qabtaa waa inay keento oo ay maxaan ku dhahdaa ka hadasho inaan halka qurun lagu qoosheyn ee ay xalaal ahayd ya imaanshiyahaasi sida xalaal u ahayd waa inay sheegaan waxa kale oo iyaduna barnaamijka ku jirta nuqdaad yar yar baan u bandoonaynaa soo qaad waxa iyaduna barnaamijka ku jirta hawlwadeen kamid ah hawlwadeenadii xisbiga oo goob kamid ah goobihii doorashada jooga oo sirdoonka qaranka xubin kamid ah ka kaxaysay oo loo geeyay meel ay joogaan taliyayaashii waaweynaa qaranka oo dhan kii militariga kii sirdoonka kii booliska kulligood ay joogaan haddayna kuwa hawlwadeen xisbi waxa weeyaan goob kaliya tuu joogay waxa sida loogu weyneynayay ee inanka intaas oo qof loogu geynayay intaas oo qof waxa ahayd wixii national security-ga qaranka dhibaato u keenay oo ka hadlaan oo maxaan ku dhahdaa ay u joogaan sida ku cad meesha inanka markii dambe waa la xidhay xabsi lama geeyna guri baa la geeyay marka ma xarig ba ma aftuuba idinka u magac bixin laakiin tiise waxa weeyaan waa waxyaabaha u baahan in dadka xuquuqul insaanka iyo hay'adaheena qaranku hadii ay cadaalad ay jirto la baaro oo laga gungaaro oo la ogaado waxa kale oo iyaduna jirta oo hadii jeer dadku ay ka hadlaan ay yiraahdaan laba warbixinood oo doorashadii ka hadlay oo warbixinna qolo civil society-ga oo Sonsaf la yiraahdaa ay samaysay warbixinna ay international observers ku sameeyeen Sonsaf kuma dheeraanayno waayo sababtoo ah Sonsaf kaalintii ku jirtay si fiican baa loo garanayaa inaanay dhex ahayn boardkeeda inay xubno fara badan oo maxaan ku dhahdaa xisbiga kulmiya golahooda dhex ku jira ay boardkeedana ku jiraan inay tahay hay'ad ku milan dawladda iyo kulmiye waa marag madoon weey xisbiguna hore uga hadlay waraaqana uga qoray warbixin ay soo saareen mid annaga na kaafeeyso na shaafeeysa ma aha warbixinta labaad waa warbixinta qolada maxaan ku dhahdaa international observers ka la yiraahdaa ay iyaguna soo saareen international observers ka markan eegay programku sida uu uga hadlaayo su'aalo badan baa u baahan in laga jawaabo oo aan doonaynaa inaan si fiican u dabagalno oo aan baadhno oo aan helo xaqiiqadooda oo aan guntooda gaadhno koo waxa ka ah oo hartu meesha cad inuu waxa la yiraahdo conflict of interest meesha uu ka jiray Michael Walls ninka la yiraahdaa chief observer ka ahaa hogaaminayay international observers ka waxa uu sidoo kale ka yahay xubin Somaliland Fox organization ka la yiraahdo organization 2005 meelaha laga aasaasay wadanka Ingiriiska sidoo kale waxa ay organization kayd la yiraahdo wada leeyihiin danjiraha Somaliland wakiilka Somaliland u jooga Ingiriiska marka danjirahana waynu garanaa waxa weeyaan kulmiye waa shaqaale dawladeed at best maxaan ku dhahdaa inuu arrimaha doorashada soo gacan galiya aan ahayn
ومركا سيدا وجوه ناكسن لو جهضه إن هداني تاهين وكلمية ويدنا وأرهن مرق مدانه لدوني عنو بهنين بعدتان مركا حبين كلمية يقف business interest أما بمحن كورا هذا دنا كلا أي كده حيان دنا هاسي واحد دونان هادان أي بيسو أهاين حبكي حلتانكا international observers كا شك بدني درين بدن بأبورو سنجيل نسان دت كي يمسدو كلا وحنا هاين دت كي كحدنا program كلا هذا إن هرجيس بوكفة international هرجيس بوكفة أو يسقنا إنه سيدو كلا أجن هاي إن أيان يوم حان كده هذا سيجدو جامع موسى جامع معمولان مركا network أكتو واحد ركز few individuals هداني قاركود كل مياه دكت لوجي هاي نسكول دويهين أو أرنت سوين كعنو كلها أرنت وجومهم سنة وباهن يدنا إن لفهمه والله بارو وأنو دون إنه نقرال كسمينه جامعة UCL هدي لهاي راح إن شاء الله أنو قرنه أن ويدين إنه كو methodology يقاب كاي أمرين هب كيف يكسر حلين ضد كنا يسوي حلين كريتيريا دم هاي يا حلي محل وجود دورني طبع الديدو لجيم ضد كان محل وجود ديدي لو جيم sidoo kale markay halkan yimaadeen dadkii la shaqeeyay localka ahaa tayaguna dad kulmiya bay haayeen oo marag madoona oo facebookyadooda iyo twitterskooda iyo waxooda oo dhan maalin walba kulmiya ku promote gareynay ku post gareynay qofku xisbi uu noqon karaa wadani uu noqon karaa kulmiyu noqon karaa ucid buu noqon karaa ceeb ma waa wax wanaagsan inuu qofku xisbi noqdo xisbiyadu waxay qayb ka yihiin horumarka iyo dhismaha qaranka qayb weyn ka yihiin laakiin qofku inuu laba shaar gashto oo dabadeetana ku raada laba shaar baan ku gashanaanayaa ay rumayso arin runtii soconaysa oo la aqbali karaya maaha arinta meesha ka soo baxdeena taa weey in dad badan oo laba shaar xidhan qofka maalin oo dhan kulmiyo walaaleynaya maalin oo dhan kulmiyo post gareynaya markuu international observers ki garwadeenu yahay ee uu isagu xogta siinayo oo isagu u turjumayo maxaa fishan kartaan ee amalayn kartaan dhaxdhaxaad ma noqon karo marka arintaasi waa arimaha u baahan in baaritaan dambe lagu sii sameeyo oo aanu annaguna baaritaan dambe ku sii sameyn doono jaamacadda UCL na aanu qoraal rasmi ah u qori doono hadii Ilaahay raahdo insha Allah weegan oo waliba barnaamijkan laftiisa intaanu turjuno Ingiriisi u turjuno isagoo turjuman annu maxaan ku dhahdaa in la share gareyn doono international observers way sababtoo ah data uu ka hadlay data ay capture gareeyeen maaha oo ay arkeen oo ay qabteen ugu dambeyntii maanta halkan uma joogno inaan ka murano doorashada yaa guuleystay yaa guuleysan doorashada waanu hibeynay waanu aqbalay Muuse Biixi waa madaxweynahayga waa madaxweynaheena full stop cid ka murmaysataa ma jirto ummad baynu nahay wada jirkeena iyo qarannimadeena inaynu xoojisanaa iyana waa muhiim cid taa ka hadlaysaana ma jirto laakiin wax weyn baa inaga qaldamay doorashadeennii madmadow weyn baa galay qaabkay u dhacday madmadow weyn baa ku jiray waa inaan saxanaa qodobka koowaad ka weyn waxa kale oo iyaduna muhiim ah hay'adaha dawliga sida xeer ilaalinta oo kale in ay Facebook wax ku qoray inta ay markiiba la boodayaan ay xidhayaan dambiyo waaweyn buu programku ka hadlayaa ay dad galeen waa inay baaraan waa hadii hay'ado madax banaan oo qaranka u taagan oo midnimada u taagan oo umadnimada u taagan oo cadaalad faleeyihiin hadii wax kale yihiin is another story waxaan jecelahay inaan ku soo gabagabeeyo commissionka sidaas ah ee dhacdooyinka iyo dhacdooyin badan oo kale ay jiraan anagu maalintii doorashada xisbigu wuxuu document gareeyay 700 oo incident 700 oo incident oo isugu jira incidents yaryar iyo incidents waaweyn oo ay soo wariyeen dadkii xisbiga muraaqibiinta waxa waanu soo bandhigi doonaa xilligeeda hadii Ilaahay raahdo insha Allah laakiin tiisa commissionka waxa soo dhami ay ku cad yihiin
inuu doorasho dambe noo qabto qofka ku fikiraya waa qof aan habeen jirin arrin dhacaysana maaha commissionkaasi doorasho dambe oo wadani u qabanayo aanu qayb ka noqonayna magacay doonta hal ahaatee ma jirto marka haddii wanaaga iyo wada jirka iyo umadnimada la doonayo war nimankii warkoodu waa cad yahay haddii iyagu xishoon waayeen is casili waayaan waxa haboon in dariiqii kale ee saxda ah ee loo casili lahaa la maro sidoo kalena qaabka aynu asalanba commissionkeenu u dhisan yahay waa qaab aan sax ahayn oo fair ahayn kaana waa in lagu noqdo in ninna shan yeesho ninna mid yeesho xalaal maaha waanu leenahay waa in lagu noqdo haddii ilaahay raada insha allah aad iyo aad baa u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu okay واتياني مكوش